mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada machadka darwiish academy qaybtani waa qaybtii dhexe waxaan ka hadlaynaa kuna bilaabaynaa waxa la dhaho candlestick iyo qeexidiisa haddii aadan fahansanayn candlesticksku waxa uu yahay iyo sida uu samaysmo iyo qaabka uu samaysmo iyo waxa uu ka kooban yahay ma fahmaysid trendline-ka iyo meesha saxda aad dhiganaysid laakiin markaad fahantid waxaan la dhaho candlesticka waxaad fahmaysaa waxa weeye trendline-kii baa fahmaysaa waxaad fahmaysaa patterns-kii waxaad fahmaysaa waxaas oo dhan sababtoo ah suuqan oo dhan waxa uu ka samaysmo waa chartskuna waxa ay yihiinba ama ay ka samaysmaanna waxa weye ma jiraan la-aantiis candlestick waa candlesticks la isku gegeyo isku tegay see marka u samaysma see iskugu biran waa inaa fahantida marka candlesticksku waa wax muhiima oo asaasiyaadkiina aan kaga soo hadalnay haddana halkan aad kaga hadlaysid isaga oo taxano ah oo midba midka kale kugu xirayo okay candlesticksku waa maxay marka candlesticksku waa tusiye ku tusinaya suuqu masal buu soo ahaa mise buy buu soo ahaa buu ku tusinaya marka aad samaynaysid waxa la dhaho backtesting waa ka hadli doonaa sida suuqa wuxuu hore usoo sameeyay aad u fiirin karta qaybta sare baan weliba kaga hadlaynaa waadna arki doontaan balse halkan waxaan kaga hadlaynaa qeexidiisa waa maxay candlesticksku waa tusiye ku tusinaya suuqu masal buu soo ahaa mise buy oo qodobka qeexida koowaad qeexida labaad waa maxay candlesticksku waa tusiye ku tusinaya suuqu marxaladda dhabta ah ee uu hadda ku jiro masalba mise waa buy buu ku tusinaya isaguna masalba mise waa buy marxaladda dhabta oo hadda ku jiro waa maxay masal mise buy buu ku tusinaya ta kale oo soo raacda waxa uu ku tusinayaa suuqu masal buu noqon doonaa mise wuxuu noqon doonaa buy marka intaas la fahano ba fahmaysaa candlesticksku marka qeexidiisa oo qof baa wuxuu dhahayaa see buu ii tusinayaa waxa suuqu masal buu noqon doonaa mise buy buu noqon doonaa wuxuu ku tusinaya markaad og tahay wuxuu suuqu hore usoo sameeyey iyo marxaladdu hadda ku jiro waxaad daroosi kartaa ama suuqaaga u falanqaynaysaa meesha uu noqon doono waxaana ku tusinaya waa candlestickii qawaaniintaas iyo waxaasoo dhan waxaa ku baran doontaa marka patterniska iyo aan dhex galno iyo waxa weye trendline-kii aan ka hadalno qaybtaas iyo qaybta sarena oo ku baran doontaa marka candlesticksku waxa uu ku tusinayaa saddex wax waa tagtadii iyo taagantii oo hadda ah iyo timaadada oo ah waxa imaan doona buu ku tusinayaa candlesticksku waana wax muhiim ah candlesticksku waa waxa qaabeeya suuqa kan waa waxa qurxiya suuqa kan waa waxa isku geeya suuqa kan oo chartiska kan isku tegay kasoo saara market structure-ka meeshuu market structure-kan iyo kasoo askumaan iyo qaab dabiiciga suuqa nature-ka iyo impulsive-ka arkaysa iyo correctionkii waxaasoo dhan baran doontaan meeshay kasoo askumaan waa candlestick sababta hadduu candlestick jireen qofna muusan fahmeen waxa kan way ku adkaan lahayd marka candlesticksku waa tusiye ku tusinaya suuqu marxaladda uu ku sugan yahay hadda masalba mise waa buy waxa kaloo ku tusinaya suuqu marxaladdu kusoo sugnaa masalba mise buy wuxuu kaloo ku tusinaya suuqu waxa uu noqon doono tusaale haddii aad halkan tagtid marxaladdu suuqu ku sugnaa markaad dib u fiirisid waxaa arkaysaa suuqan inuu ahaa halkan buy sell waxa ku tusinaya markaad fiirinayso falanqaynaysid waa candlestickskii marxaladda uu hadda ku sugan yahayna waxa ku tusinaya waa maxay waxa ku tusinaya waa wax la dhaho waxa weeye candlestick waxa la dhahaa ku tusinaya waxa uu noqon doonana waxa ku odorosi kartaa waxa weeye candlestickska baa ku tusinaya markaad fiirisid qaab dhismeedka suuqa kan iyo wuxuu hore u sameeyey iyo waxa uu hadda samaynayo tusaale haddaad fiirisid waxaad arkaysaa suuqa kan haddaa ka jarno oo fiirisid ama dib u daalacatid wuxuu hore u sameeyey suuqa kani halkan wuxuu soo ahaa buy
horey buu halaka usoo taabtay halakan kale wuu soo taabtay mar halakanna wuu soo taabtay okay kadib wuu soo dhacay halakana lagu celcelinaya ujeedaan kadib wuu soo taabtay halakan maxaad helaysaa marka maadaama halakan horey usoo taabtay uu suuqani aad candlestickskan way waxa ku tusinaya suuqa kan inta maro halakan hore usoo taabtay waa maxay waxa ku xiga marka inuu soo daadanayo waad ogaanaysaa oo waxa kuu sheegaya inuu suuqa wuxuu hore u sameeyay waxaana ku tusinaya candlestickska xogta ku siinaya waana tusiyo ku tusinaya marxaladda suuqa ku sugan yahay okay hadda markaad fiirisid marka wax marxaladdu hadda ku jiro ma buy ama siwaasal waxa ku tusinaya suuqu waxa ku tusinaya waa candlestickska suuqu inuu hadda buy ku socdo marka inta soo fiirisid marka adoo adeegsanaya qaab dhismeedkii suuqa adoo adeegsanaya market structure-kii waxa ku tusinaya suuqu marxaladda uu ku dambeyn doono wax kale maaha waxa ku tusinaya waa market structure-kii candlestickska market structure-kuna waa candlesticks isku tagay waxaana uu ku tusinaya suuqani marxaladda uu ku dambeyn doono iyo waxa uu noqon doono candlestickska ku tusin doona adiga oo ka duulaya suuqu wuxuu hore u sameeyay iyo marxaladdu hadda ku jiro iyo waxa uu ku dambeyn doono uu noqon doono mudanayaal iyo murwooyin qaybtani waa qaybtii aan ku qeexaynay candlestickska iyo waxa uu yahay iyo qeexidiisa waxaan guda gelaynaa qaybta ku xigta baa inoo ballana inaad waxaan idiin rajaynayaa aad fahanteen qaybta ku xigtana aad fahmi doontaan sababtaasaa kan u fahanteen baadkaasna u fahmi doontaan idinkuna fududaan doonaa candlesticksku waa wax xasaasi waa wax muhiim ah inuu qofku barto haddaad baratidna way ku fududaanaysaa insha allah qaybta xigta iyo candlestickski oo aan si qoto dheer usii dhexgeli doono baa inoo ballana waxaan idiin rajaynayaa guul iyo sirtii suuqa forex oo Darwish Academy aad ka helaysaan muuqaalba muuqaal ka dambeeyo uu ka xiiso badan yahay guuleysta